رئيس وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga gurmadka qaran ee dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii isxigay ee shalay sooba ka dhacay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya howlaha gurmadka ee qaraxii kiiloomitir 5 xubnaha guddiga gurmadka oo ka kooban 10 qofood ayaa kala ah Dr. Cali Xaaji Aadan wasiirka caafimaadka, Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali wasiirka amniga gudaha, Faarax Sheekh Cabdiqaadir wasiirka waxbarashada, Daawud Aweys Jaamac wasiirka warfaafinta, Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka haweenka, Abshir Maxamed Axmed wasiiru dowlaha madaxtooyada, Xirsi Jaamac Gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha, Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir, Maxamuud Macalin Cabdulle gudoomiyaha Sodma, Cabdiqaadir Cabdullaahi Faarax maareeyaha hay'adda gurmadka qaran. Guddigan uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u xilsaaran waajibaadka soo socda: 1. hubinta iyo la socodka khasaarihii ka dhashay qaraxii 29 bisha 10aad 2022 ka dhacay Soobe. 2. fidinta caawimaad degdeg ah dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyada. 3. diiwaangelinta iyo baadigoobka dadka la la'yahay. 4. isku xirka iyo isku dubaridka howlaha gurmadka. 5. xal u helidda iyo xoojinta adeegyada caafimaad ee isbitaalada dalka.